wasiir Bayla wuxuu noo sheegay in Soomaaliya deyn laga cafiyo uu naga dhaadhiyay wax meel deyn looga cafiyana anagu maanan arag afarta barnaamij bay maraan SNPS-ka UBT-ga DRCP-ga waa afarta shuruudood baa ugu waaweyn marka la rabo wadan deyn laga cafiyo wasiirku wuxuu noo sheegay 27 dal iyo institutionska ah oo Soomaaliya kule lacagaha for example oo kale institutionada lacagaha kule waxa kamid ah Paris Club iyo Mareykanka waxa kule 3.6 billion lacag gaarayso kule lacagaha SNPS-ka iyo P2C-ga iyo PRBC-ga wasiirku wuxuu inoo sheegay in wadamada lacagta kule shuruudahooda aan loo ogolayn in ay dal deyn ka cafiyaan Soomaaliya marka ay noqoto wasiirka waxaanu ka rabnaa waxa uu asaga kaliya uu aqoonsan yahay iyo waxa asaga kaliya uu fahmayo ay dadka kala fahmi la yihiin bahana ka dhaadhiciyo Soomaaliya waxay ka gudubtay barnaamijkan SNPS-ka kaliya waxa u dhiman UBT-gi waxa u dhiman PRCP-gi wali meel lagu soo bandhigay oo ay looga gudbana ma hayno deyn cafinta Soomaaliya marka laga waramayo nimanka hadda talada haya iyo wasiir Bayle iyo madaxweyne Farmaajo iyo Khayraba waxa ay qaateen deyn gaaraysa 40 iyo gaaraysa bay qaateen oo IMF-ta ka qaateen oo cad oo institutionadii ay iyo xukuumadihii iyo dadka ay ka qaateen lahaya waxaanu aqoonsanay waqti xaadirkan dawladda Soomaaliya dawladdii hore inay dawladdan ka deyn badan tahay waxa jiray barnaamij uu maalin dhaw wasiirku noo sheegay oo financial bridge ah oo ahayd deyn ku gud oo waliba ay u sii dheer tahay barnaamij la yiraahdo interest rate ah in 20% interest rate oo financial bridge la yiraahdo marka hanaanka deyn cafinta Soomaaliya laga hadlayo waxa dhiman barnaamijka UBT-ga oo loo yaqaano unit financial bahalki la yiraahdo baa jiray barnaamijkaas oo ah in Soomaaliya ay qaadan karto wadan allaala wadanka ay u baahan tahay inay deyn ka qaadan karto IMF-tay ku caday shuruudaheedu wali lama soo buuxin waxa kale oo jira barnaamij PRCP ah oo barnaamijka ugu dambeeya oo dad ama dawlad deyn loogu cafin karo wax yar waxa raba inaan qeexo World Bank-ga iyo IMF-tu waa hay'adda lacagta adduunka waxaana inta badan aasaasay wadamadan ugu horeeya Mareykanku waxa loo aasaasayna waxa weeye in lagu ciribtiro wadamada dhaqaalahooda uu soo korayo wali maanan arag wadan deyn laga cafiyay oo Afrika ah ama Europe ah ama Latin America ah lama arag meel lagu sheegayo marka waxa laga rabaa hanaankan hadii ifan ay leeyihiin waxbaana la ka cafinayaa bal hanoo qodobeeyo wasiirku hanoo keeno barnaamijkan meelaha uu ka soo xigtay waanu haynaa USB-gi UBT-gi PRCP-gi 9 sano ayaa waxa ka daba wareegayaan Ethiopia ka daba wareegaysa in deyn laga cafiyo meel looga cafiyana ma arag warkii dambana markii beentaasi turfada ay shaqayn weeyday 9 milyan bay iska bixiyeen marka wasiir Bayle iyo waxa weeye ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre beentan iyo burbaanbugadan umada laga daayo oo waxa weeye umada oo kiyaala cagaar ayaan loo gelin oo khiyaaliga iyo beenta umada ayaan laga dhaadhicin waxa weeyaan waa markii ugu horeysay oo deyn la ka cafiyo meel deyn lagu cafiyay anagu ma arag waxa weeye wasiirku hanoo sheego wasiirku wuxuu yiri waxa weeye deyn baa la ka cafiyay asaga umada ugu sheekeeyay bal deynta dadka laga cafiyay iyo dalalka ay ka cafiyay bal hanoo sheego dadkan laga dhaadhiciyo sidoo kale wasiir Bayle wuxuu yiri ma fahmi kadaan hanaanka miisaaniyadda dawladda hanaanka procedures-ka deyn cafinta wasiirka meesha u muuqato oo dadka kale u muuqan weeyday wasiirka kaliya fahmaya hanaanka maaliyadda oo aysan cid kale fahmayn waxa way arintaas aad iyo aad baan ula yaabay barnaamijkan kale SNPS-ka 14 shuruudood kamida waana la ka hayaa oo intii kala waa ay maqan tahay 94 procedure baa la yiri waana la ka cafiyay oo shuruudahan marnay maanan arag meel lagu cafiyay waxyaalaha hadda aankana lagu haysto waxa kamid ah dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa Central Bank-ga iyo IMF-ta lacaga badan oo bangiga dhexe ka maqan baa jiray markii xisaab xirka uu dhacay sanadkan lama sheegin meel ay ku dhacday 18 milyan baa maqnayd oo Central Bank-ga ka maqnayd waa la soo daabacay institution dhan baa ka hadlay hanti dhowr qaran oo dawladdu ay leedahay 18 milyan Central Bank-ga way ku dhacday laakiin dhankan kale ma aysan soo marin
marka waxaana loo ka baahan yahay in la caddeeyo barnaamijkaas bal meesha uu ku dambeeyo wey UABT-gaasi weli maanan soo gaarin oo 28 shuruudood buu soo hoostagayaa wey waxaanu hadda dhammaynay oo la leeyahay complementation bond waan u gudbaynaa intaan horta complementation bond u gudbo waa inaanu soo marnaa saddexda procedure oo kale SNBS-ka markaan ka baxnay waa barnaamijka kale oo ku xigay waa UNBT-ga UNBT-ga markaan ka baxno barnaamijka kale waxa ku xigay SBIBRC-ga markaasna wuxuu ku dhamaanayaa barnaamijka ugu dambeeyay oo ahaa complementation bond-ga waxa ayna qaadan kartaa barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya ugu yaraan 20 sano in saas oo kale la isaga daba wareego waa umada beenta laga daayo oo hanoo keeno wasiirku cadeyn proof hana loo keeno EMFT World Bank iyo waxa ay dhaheen waa u qalantaan laakiin lama oran deyn baa la idinka cafiyo hana la ka dhaadhiciyo wasiirka intaas rabay bal in loo qodobeeyo doodaydu intaas ku salaysan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi